waa muuqaal inoo muujinaya siday dadku u kala naxariis badan yihiin. Aabbahan waayeelka ah si uu gurigiisa u gaaro wuxuu doonayaa inuu tagsigan raaco. Ninkii darawalka ahaa ayuu la hadlay. Aabbahan xaafadiisa aad ayay uga dheertahay halka uu joogo. Darawalka aad ayay dhib ugu ahayd, haddana wuxuu ka oggolaaday inuu qaado. Mar kale aabbihii wuxuu darawalka u sheegay inuusan wadan lacag ku filan. Darawalkiina wuxuu dhahay, iska soo kor, ajarkayga ajarkaagaba Ilaahay ayaa haya. ولدي جزاك الله خير. waa hubaal dadka garashadan camal leh dunidan way ku yar yihiin. Bal u fiirsa aabbahan waayeelka ah ee dhibaataysan iyo darawalkan horay umay kulmin. Waxaa keliya oo isku keenay waa waqtiga. Safar dheer kadib waxaa la soo gaaray xaafadii uu deganaa aabbaha. Aabbihii wuxuu rabay in uu siiyo darawalkii lacag, balse waa uu ka diiday, waayo ninkan tagsiila ah wuxuu dareemay in aabbahan uu u baahan yahay lacagta. يا ولدي ويرزقك ان شاء الله. الله يرزقنا ويرزقك ان شاء الله يا ولدي. امين يا مع السلامه. جزاك الله خير يا ولدي. الله يخليك. الله يا ولدي. aabbihii markii uu ka soo degay gaariga wuxuu arkay wiil yar oo uu awow u yahay oo guriga hor fadhiya. wuxuu weydiiyey waxa ku dhacay. wiilkii yariiskaa wuxuu ku dhahay, waan gaajeysanahay, raashinkii guriga yaalayna wuu dhammaaday. sheekadoodana waxaa kor kala socday ninkii darawalka ahaa. haddaba u fiirsa, muxuu samayn doonaa ninkan tagsiilaha ah. ninkii tagsiilaha wuxuu tagay dukaan lagu iibiyo cunnada qaybaheeda kala duwan. maadaama uu ka gilgishay xaaladda adag ee aabbahaas iyo carruurtiisa ku sugan yihiin, wuxuu go'aansaday inuu ku garab istaago oo uu u soo iibiyo cunto. ninkan wuxuu ogaa inaan qofna loo abuurin inay dhibaato la deristo, balse uu Ilaahay eegayo inaan iscaawino iyo in kale. ninkii tagsiilaha wuxuu imaaday gurigii uu aabbaha ku noolaa. iridda ayuu u gargaraacay, waxaana ka furay aabbihii. aabbihii wuxuu weydiiyey waxa soo celiyay ninkan, balse la yaab badana ninkan tagsiilaha wuxuu yidhi, waxaad gaariga uga dhex tagtay alaabtaadii. aabbahan aad ayuu ula yaaba hadalka ninkan, ilaan waxba muusan sidan. balse ninkan tagsiilaha oo doonaya inuu si sarbeeb ahaan ugu sheego sadaqada uu siinayo ayaa wuxuu yidhi, waa alaabtii aad carruurtaada u soo iibisay ee marka xiga gaariga waxba ha ku dhex hilmaamin. aabbihiina wuu fahmay ujeedka ninkan, wuuna u duceeyey. waa walaalkiin Axmed oo idin leh, muuqaalkan sii sheer gareeya oo walaalaha kala gaarsiiya.